waxyaabaha wanaagsan ama cajiibka ah ee aad ka faa'iideysan karto ee lagu soo kordhiyey fershanka shanaad ee aaladda ChatGPT ee la soo saaray maalmihii u dambeeyay kugulama wadaagayo wax kasta oo la soo kordhiyey waxaan kugula wadaagayaa waxyaabahaas leeyahay haddii aan kula wadaago waxbaad ka faa'iidi karaysaa ama muhiim ayay ku yihiin waxaan ku bilaabayaa marka koobaad saaxiibayaal dhanka muuqaalka haddii aad hadda kombiyuutarkayga shaashadiisa eegto anu kombiyuutar baan isticmaalayaa si shaashada aad siyo weyn taleefankaaga waad ku isticmaali kartaa haddii applicationka ChatGPT kugu jiro waxaad arkaysaa wax la bedelay midabkii gadaal ee dambe ee ChatGPT hadda waa khafiif xag dambe midabaa ka muuqanaya soo kale hadda conference waxay ku leeyihiin introducing GPT-5 waxay soo bandhigayaan in ChatGPT-5 ama versionka shanaad ee ChatGPT ay soo saareen marka dhanka muuqa waxaa jira isbedel ku yimi balse intaasoo keliya maaha waxaa jira waxyaabo kale oo muhiima qodobka labaad ama qodobka koobaad ee aan kugula wadaagay muuqaalkan ee ChatGPT laga bedelay marka laga yimaado midabka oo aan macno badan samaynayn waxa weeye marka ChatGPT su'aal weydiiso waxay ka jawaabaysaa si dhaqsiya leh marka la barbar dhigo fershanadii hore ama noocyadii hore hadda ChatGPT haddaad su'aal weydiiso waxa weeye su-aashaadu xitaa haddii aad dheer tahay waxaa laga yaabaa inay ugu badnaan 10 second iyo wax lamid ah kuugu jawaabto xitaa su'aalo dhaadheer haddii aad weydiiso marka waxaa kor loo qaaday su'aalaha waqtiga ay kaga jawaabaysay laakiin kaasi maaha waxa ugu muhiimsan ee laga bedelay waxaa jira mid ka mid waxyaabaha ugu muhiimsan ee ChatGPT laga bedelay waxa weeye markii hore intaan hadda update-kan la samaynin ChatGPT waxay lahayd dhowr nooc waxay lahayd ChatGPT 4 mini ChatGPT 4o macnaha dhowr nooc bay lahayd nooc kasta oo ChatGPT ka mid ahay wuxuu lahaa meelo uu awood ku leeyahay meelo uu ku hooseeyo marsalan haddaad u baahatay su'aal kooban aad weydiiso nooca fudud baad aadaysa haddaad su'aal u baahan fikir aad weydiiso nooca reasoninka iyo fakaraya ka hor intaysan kuu jawaabin baad isticmaalaysa mid ka mid waxyaabaha ChatGPT 5 loo sameeyey aan isleeyahay muuqaalkeena kugula wadaago waa u muhiim waxa weeye ChatGPT 5 uma baahnid adigu noocyada inaad kala doorato su'aal baad weydiin iyadaa noocyada gudaheeda garanaysa su-aasha aad weydiiso nooca ku haboon iyada automatic ku dooraysa kuwii hore waxaa laga dooran jiray halkan ay ku taalo ishaayar dadna halkan ay ka soo baxayeen dadna halkan aad ka dooranaysay imka waxa laga yaabaa inay adiga hadhow taalo halka other ku taalo dadna lagu kala tusay ChatGPT versionadii kale ee ayga ahaa laakiin haatan su-aasha halkan marka timaadaad weydiiso haddii su-aasha ay u baahan tahay caqli inay fakarto ee aygu waxa weeye iyada fakaraysa marka adiga uma baahnin inaad kala doorato waxay u baahnayd inaad ayada kala garanayso moodalada iyo mid walba meesha ay awoodda ku leedahay hadda halkanaad iman su-aashaada qori kaliya waxaad sugaysaa un waxa weeye waa jawaabta weeye taas marka waa mid ka mid waxyaabaha muhiimka ee ayga laga bedelay ee lagu soo kordhiyey mid ka mid waxyaabaha kale ee ayga lagu soo kordhiyey waxaa ka mid a haddii aad in badan isticmaashay ChatGPT waxyaabaha ay aadka caanka ugu tahay waxaa ka mid a inay jawaabo aan jirin oo been ah iyadu ikhtiraacdo markaad ChatGPT su'aal weydiiso anu many times baan arkay su-aashaas maybe waxay doontaa ku sanaabsanato ChatGPT sometimes iyada inventi garanaysa jawaabta halkii ay jawaab la imaan lahayd ama maaragtay ma garanayo ay odhan lahayd iyada hallucination bay lagu yidhahda English iyadaa markaa ikhtiraacaysa jawaabta waana jawaab aan jirin basically waxay leeyihin ChatGPT 5kan lagama saarin meesha inay been sheegto ama ay mararka qaar jawaab been iyadu ikhtiraacdo oo aan wax jiro oo salyaraada lahayn ah laakiin waxay leeyihin waa laga yareeyey marka kulli tijaabooyinka marka lagu sameeyo meelaha qaar waa la yareeyey meelaha qaarna lama yareen sababta loo yareeyey wax kale maayo waxa la leeyahay ee ayagu intuusan mararka qaar jawaabin fact checking buu sameynaya isagaa hubinaya inuu been ama jawaab aan jirin ikhtiraacyo inaanu ikhtiraacin meelahaas le odhan karto waad ku tijaabin kartaa inuu ikhtiraacyo jawaabaha waxa weeye meelahaas leedii xog fara badan ka mahay masala dad siyaasadda soomaalida oo kale wax weydiiso madaxdii soomaalida soo maray oo kale waqtiyada qaar weydiiso madaxweyne beene bay kuu sheegaysa waan waqtigaa talinayninba basically wax kale maaha waa iyadoo la imanaysa jawaab un inay ku siiso halkay la imaan lahayd jawaab saxa inay ku siiso ee ay waxay door bidaysaa inaanay waxba garan waayeen ay wuxuun ku hadasho basically sidaa weye marka wax weye jawaab so taana waxay leeyihiin waanu yarayn
qodobka afraad isla yimid isaguna waa mid kamid ah qodobada ugu muhiimsan ee ayga lagu soo kordhiyo waxa weeye wuxuu la xiriiraa waxbarashada markaad ayga su'aalo aqoon weydiinayso haddii imkaan shaashada eegno halka haddii aad ku dhufato waxay ku soo daraan qaybta la yiraahdo study and learn haddaan ku dhufto waxa weeye qaybtan waxay kaa caawinaysaa markaad doonayso inaad wax aqoonta la xiriira aad weydiiso su'aalo haddaad weydiinayso haddii ay wax ku soo koobayso haddii casharo aad baratay ay ku soo summarize garanayso halkan aad gelin waxaad leedahay waxa ii sharax ama practice iga qaad ama sida halkan su'aalaha taal help me with my homework iga caawi homework iyo shaqo guri explain a topic wax ii sharax iyo create a practice quiz is samee quiz aan wax ku practice garanay marka qaybta waxa lagu talagalay waxa weeye waxbarashada iyo qofka doonaya inuu wax barto qodobkan waxa weeye waa lagu soo diray intaan muuqaalka hadda idinku sheegay waa inta ugu muhiimsan ee hadda ayga lagu soo diray dhanka qiimaha ee aygu qayb iibaba leeyahay qiimihii waxba lagama bedelin laakiin hal shay oo muhiim ah baa jira ChatGPT 5 lagu soo diray hadda laba qayb bay leedahay qaybtii iibka ahayd iyo qaybtii furiga ahayd ChatGPT 5 maalinkii waxaad haysataa 30 message oo aad u diri karto 30 haddii aad u dirto ChatGPT 5 adigoo iibsada mooyaane waa inaad fershanadii hore ee aynu soo dhaafnay intaan ChatGPT 5 la soo saarin aad isticmaasho haddii aad iibsato se ChatGPT 5 baad awood u helaysa waxaana soo kale xusuus mudan dhammaan fershanadii hore waxa ka awood weyn ChatGPT 5 koodii iibkaha iyo koodii furigaha iyadana waxaad maalinka u haysataa 30 message haddaad u dirto way kaa buuxsantay waa inaad markaa ama iibsataa ama modeladii hore ama AI ka horeeyay ee 4o iyo 4o mini iyo kuwa kale waxa weeye inaad isticmaasho update-ka lagu sameeyay waqtigan muuqaalkeeda la wadaagay intaas ay ugu muhiimsan midabka halkan ka muuqanaya ee shaashada waad bedeli kartaa inkastoo laga yaabo dadka qaarna inay bedeli karin ay ku xirantay inaad tijaabiso hayeshe waa la bedeli karaa marka maraba muuqaalka inaan kugu dheeriyo soo waxaan muhiim ah sida loo bedelayo laakiin qaybta setting iyo meelaha waxa weeye waad ka bedeli karaysaa haddaba inahaas ugu muhiimsan waxa weeye waxyaabaha ChatGPT 5 lagu soo kordhiyay muuqaalka waxa ku talagalay inaanu dheeraanin oo aanan ku tusin waxyaabaan because basically dadka badankooda ogeen in loo isticmaalayo AI-ga qaybta study wana ku tusay halkaas aad ka dooran su'aashii wad weydiin qaybta AI-ga versionadiisana halkan aad ka dooran xawaaraha markaad su'aasha weydiiso waad arkaysaa say kugu soo jawaabto qaybta hallucination-ka iyo su'aalaha marka la weydiiyo ay jawaabta beenta ama jawaabta aan jirin ee iyadu la iimaanaysay ay ku siinaysayna wax weeye waa la yareeyay bal soo intaa weeye marba muuqaalka inaan kugu dheereeyo waxaan rajaynayaa muuqaalkan kale inaan update-kan ku siiyay wax ka faa'iideeyo haddii ay dhacday muuqaalkan like